السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دكتور يوسف كسر دوادا برنامجك ديرجن عافمد وناكسن ما أنت وحنا كهلا فيديو كهلا نوع كميدا فانجسكا أو إنفكشن فان هذيشر إنفكشن كا قارو حسابا بكتيريا أما حسابا فيروس كحسابا أما فانجس أي سببا أما باراسيت أي سببا marka xilligan lagu jiro xanuunkan COVID-19 oo kale funguskani aad iyo aad ayuu dadka qaarkood u saameeyaa maxaa yeelay difaaca jirkooda ayaa aad iyo aad u hooseeya xanuuno fara badan ayaa ama waxyaabo kala duwan baa saameeya in difaacu jirka hoos u dhaco marka funguskan waxaa loo yaqaanaa black fungus ama mucormycosis waana nooc ka mid ah funguska kaas oo saameeya qaybo fara badan oo jirka ka mid ah tusaale ahaan oo kale wuxuu saameeyaa qaybta ama sanbabka ayuu saameeyaa ama maqaarka ayuu saameeyaa ama maskaxda ayuu saameeyaa marmarka qaarkood xubnaha jirka gudaha hoose ayuu saameeyaa marka funguskan haddii aan la daweynin aad ayuu khatar u yahay waana wuxuuna sababi karaa qofka inuu u dhinto funguskan u dhinto ayuu sababi karaa had iyo jeerna ma fara badna inuu funguskan ku dhaco laakiin wuxuu ku dhici karaa dadka uu difaacooda aad iyo aad u hooseeyo waxaana aad iyo aad muhiim u ah in mar haddaa lagu jiro xilliyadan xanuunadan oo jiro koronahoo kale in dadka uu xanuun ku dhaco koronaha ama dadka xanuunada kale la nooli in ay la socdaan oo ogaadaan calaamadahan uu fungusku leeyahay haddii ay isku arkaan ay la xidhiidhaan dhakhtar la xidhiidhaan si looga daweeyo sida ugu dhaqsaha badan kaas oo haddii aan la daweynina sababay in loo geeriyoodo marka funguskan had iyo jeer laguma kala qaado si toos ah qof to qof sida koronaha loo kala qaado oo kale isaga looma kala qaado dadka u nugul inuu ku dhaco fungus xanuunkan uu sababayo funguska waxaa ka mid ah had iyo jeer dadka tusaale ahaan oo kale xubnaha laga bedelo tusaale ahaan oo kale keliyahoo kale laga bedelo dadka kale ee la nool macaanka waqti badan la noolaa had iyo jeer macaankooduna uu complication uu yeesho ama aan si fiican loo controlin oo loo maamulin sokorta jirkooda waxaa kaloo ka mid dadka had iyo jeer oo kale laga daweynayo kansarka oo kale chemotherapy ahaan oo kale la siinayo dadka la nool COVID-19 oo kale xilligan aan la joogno xanuuno fara badan baa jira dadka AIDS-ka HIV qaba iyo dadka daraagiska ama dawooyinka isticmaala had iyo jeer isku muddo isticmaala ama dadka waqti badan isticmaalayay dawooyinka ama dawo ahaan ama si qaldan ha u isticmaalaan ama ha lagu daweynayo dawooyinka steroidka loo yaqaano waqti badan isticmaalayay iyo dadka ama qalliin ahaan oo kale loo sameeyay dadyaga noocaas oo dhan waxa hooseeya difaaca jirkooda ayaa hooseeya haddii uu hoos u dhaco difaaca jirkaaguna funguskani si yar oo sahlan ayuu ku saameynaya waanad u nugushahay in uu ku saameeyo funguskani oo uu kugu dhaco funguskan oo infectionkan ah imanka waxaa aad iyo aad loogu arkaa dadka had iyo jeer xanuunkan koronaha oo kale laga helay ama ka bogsaday ama uu hayaba waxyaabahaas oo dhan waxa weeye waxa haddii aan sokortii macaankii jirkaaga aan si fiican loo maamulin hadduu koronaha sidoo kale kugu dhaco waxyaabahaas oo dhan waxay sababayaan inuu hoos u dhaco difaacii jirkaaga caadi ahaan xanuunkan ama funguskan oo kale marka qofka jirkiisa ama difaaciisa iska caabin karaa laakiin hadduu chance kugu helo difaaci oo hooseeya si yar buu ku saameynaya marka sidee loo kala qaadi qofka uu qaadi karaa xanuunkan ama funguskan oo kale funguskan waxa uu qofku qaadi karaa tusaale ahaan oo kale isagoo oo qaybta hawada dhulmareynta oo kale hawada ku raaca oo aadna neefsashadii qaadashadii oo kale ama sanka ama afka kaa gala ama in aad liqdo oo cunto ama qayb ka mid ah dhuunta cuntada uu ku maro ama in kugu dhacdo tusaale ahaan oo kale jirkaagii ama maqaarkaagii wax gooyaan ama nabar kugu dhaco deetana sidaana uu ku soo saameeyo infectionkii
waxyaabahaasi waa waxyaabaha uu kuu sababi u sahlan inuu jirkaaga soo galo. Haddii uu hawada ama qaybta dheef mareenka kaa saameeyo, waxa uu infectionkaasi gelaya uu gaaraya dhul mareentii, sanbabkii, xataa waxa laga yaabaa inuu gudbo qaybtii maskaxdaada, indhihii, qaybahan sinuska ee gudahan, qaybtan hore ee facekeena ee gudaha waxay leedahay daloolo, qaybahaas oo uu saameynayo oo laga yaabo inuu xidho, ama waxa laga yaabaa in uu kaa soo galo nabar kugu dhaca, qayb ka mida uu ka faa'iidaysto jirkaagii oo uu nabar ku dhacay, dabeetana uu soo maro oo uu xaggaana ka soo galo jirkaagii. Infectionkani haddii uu kugu dhaco wuxuu sababayaa in uu unugyadii jirkaaga dilo iyo inuu xidho xiidada dhiigaga qaada, qayb ka mida uu xidho oo uu bloogareeyo. waxyaabahaas oo dhani waxa weeye waxyaabaha uu kugu sababayo xanuunkan haddii aan si fiican loo daweyn, aan looguna hortegin. waxaa ka mid ah calaamadaha aad isku arkayso haddii aad xanuunkan ama infectionkan jirkaaga soo galo. meelo badan buu saameeyo oo ka mid a jirkeena ah. markaa bal waxaynu kala qaadaynaa. haddii uu kaa soo galo qaybtan dheef mareenka oo kale, waxaa laga yaabaa inuu kugu sababo sankii oo kale, uu sankaaga xidho, sankii balo uu xidho, inuu qaybta wejigan oo kale ay bararto, casaan yeelato, indhaha uu saameeyo, indhihii ay ku bararaan oo kale, infectionkii uu sababo wejiga iyo qaybta indhaha oo kale uu saameeyo, taas oo sababaysa in casaan ama barar ama madax xanuun kugu sababaysa, ama sababaysa inuu sankii oo kale uu ka yimaado had iyo jeer wax dareere ka yimaado, ama mararka qaarkood oo kale dhiig wato oo kale, ama uu sixiro, ama aad xumad yeelato. waxyaabahaas oo dhani waxa aad isku arkaysaa haddii aad uu kaa saameeyo qaybta dheef mareenka. haddii uu hoos u dhaadhaco, tusaale ahaan oo kale uu gaadho sanbabkaagii oo kale, inaad laab xanuun oo kale dareento, inuu qufac kugu sababo, inuu naqaskii oo qaadashada naqas ay kugu adkaato oo kale, xumad kugu sababo. waxyaabahaas oo dhanna waxaad ka dareemaysaa haddii uu hoos u gaadho sanbabkaaga. mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa in uu sii gaadho oo sii dhaafo oo dhiigga raaco, ama uu maskaxda tago, ama uu unugyada ama qaybo ka mida oo jirka gudaha uu gaadho, sida beerka oo kale, beeryarada oo kale, maskaxda uu gaadho, maqaarkii uu gaadho. meel kasta uu hadduu dhiigga raaco, meel kasta oo jirkaagiiya, wadnihii uu gaadho, meel kasta uu kusii faafaya. haddii uu ama cunto ahaan oo kale kuu soo raaco, ama si kale afkaaga soo galo qaybta cuntada oo qaybtan had iyo jeer cuntada, dhuuntan iyo caloosha iyo cunto mareenka oo dhan, haddii uu sababo uu kaa soo galo, iyadana wuxuu kugu sababayaa tusaale ahaan oo kale lillabo oo kale, hunqaaco, marmarka qaarkood dhiig wadato oo kale. mar haddii lagu jiro xanuun ay jiraan oo kale, dad badan uu saameeyo xanuunkan had iyo jeer koronaha oo kale, difaaci jirkooda uu aada hooseeyo, sidee aan uga hortegi karnaa in uu ku saameeyo isaguna xanuunada fungaskan oo kale, infectionkan uu ku saameeyo. waxaa muhiim ah in aad had iyo jeer ilaaliso maaska xidhatay oo kale, afkaaga iyo sankaaga aad daboosho, inaad ilaaliso nadaafadda gacmahaaga, aad had iyo jeer ku dadaasho meelaha uu ku badan yahay. waa had iyo jeer fungaskan wuxuu ku badan yahay ciidoo kale aad, iyo meelaha wax dhismaha oo kale ay hawadu kaa soo gaarayso oo kale aad ayuu ugu badan yahay. marka waxyaabahaas oo dhan waxaa muhiim ah inaad taxadar dheeraada ka bixiso. waxaa kaloo muhiima inaad la socoto had iyo jeer cunto dheelitiran, cuntooyinka had iyo jeer kor u soo qaada difaaca jirkaaga inaad isticmaasho, inaad fitamiino supplement ahaan oo kale aad isticmaasho, in aad haddii aad macaan qabto oo kale aad ku dadaasho in ay had iyo jeer sokortaadu noqoto mid la manage gareeyo oo la controlay, oo si aanu difaacaagu jirku aanu hoos ugu dhicin. haddii uu kugu dhaco infectionkan oo kale, ayadana waxaa aad iyo aad muhiim ah inaad sida ugu dhaqsaha badan ula xidhiidho meel caafimaad si lagaga daweeyo. haddii aan la daweynin had iyo jeer wuxuu sababaa xanuunkani ama infection complication aad u fara badan ayuu ku sababa jirkeena. wuxuu sababi karaa inuu infection kugu sababo qaybta maskaxdaada, inuu indhala-aan kugu sababo oo kale, inuu xiidadii dhiigga qaadayay uu xidho uu awdo, inuu qaybahan wejiga sinusaska uu xidho, hooga qaybta hore ee wejiga inuu xidho, inuu kale kugu sababo had iyo jeer neerfayaasha qaybta wejiga uu saameeyo, uu paralyzer ka dhigo. waxyaabahaas oo dhan
marmarka qaarkood uu qofku ku sababo gariirto uu ku sababo marmarka qaarkood qofku inuu uga dhintaba. Marka fiidiyogan intaas ayaan kusoo koobayaa. Waxaana muhiim ah inaad markasta maask xidhato, ilaaliso dhaqidda gacmahaaga, kana taxadirto markasta inuu ku saameeyo wax xanuunada infectionka ahi oo digtooni ka samayso. Intaas ayaan kusoo koobaynaa fiidiyogan ku saabsan funguska iyo infectionka. haddii aad nagu cusub tahay videoga sii share garee, channelkana support garee oo subscribe saar. waa inoo iyo kulanto dambe aad iyo aad baan islaamaya. waqti waa inay